xisbiga mucaaradka u ciiday maanta ku beegnid maalintiisii ololaha ayaa degmada Cilifina gobolka Sanaag ku soo bandhigay xuduudiisa taageero ka haysta shacbiga degmada Cilifina gobolka Sanaag mas'uuliyiinta xisbiga u ciidiya musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka ka sharaxan xisbigaasi ayaa taageerayaashooda kala hadlay xafiisyadooda hortooda waxaana ugu horreynba halkaasi taageerayaasha kala hadlay afayeenka guud ee xisbiga u ciid Maxamed Cali Bilaal iyo gudoomiyaha degmada Cilifina xisbiga u ciid Maxamed Cabdi Dheere xafiisyada xildhibaanada dhammaan taageerayaasha aad baan idinku mahad celinayaa waxay naga go'aanaynu doonaynaa maalinta 31 May sida ay isugu soo baxdeen ee quruxda badan in xildhibaanada golayaasha wakiilada ee xisbiga ka sharaxan u ciid iyo xildhibaanada golaha deegaanka idinkoo midaysan oo isku duuban codkiina siisaan Cilif Weyn soo wada ciid maaha waxaan leeyahay Cilif Weynow mid idinkoo codeeya idinkoo mida codaynaysaan taageerayaashiina u codaynaysaan xisbigu waa weel maalinba qof wax ku shubta xisbiga u ciid la yaado waa xisbiyada ugu fiican buu ka mid yahay maanta weelka dhowra ku shuba wax codka siiya taageerayaashiina siiya xildhibaano dadka u shaqeeya inay ka soo baxaan xildhibaano aan la xisaabtantaan dadweynahiinow waa inaan la xisaabtantaan xildhibaanadiina soo saara hadhowna la xisaabtama sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay musharaxiinta golayaasha wakiilada uga sharaxan degmada Cilifina gobolka Sanaag xisbiga u ciid Ismaaciil Maxamed Cambaashi Jaamac Axmed Ogle iyo waliba Cumar Jaamac Faarax waxaan idin sheegayaa kulley calaamadeedu aniga waa dawaco waa aragtaan dawacadana wax weyn bay xambaarsan tahay ma hadda wacdi adiga cuni jirtay wax weyn bay xambaarsan tahay maalinta Hargeysa ka imaan Burco soo galo niman reer Burco ay la kaftamay dabadna waxay warninkan xagaa tabarree Cilifin baan haway sheegsadeen waxay wariyaa dawacada hadeedan boorka ka ilaalinayeen ha ku cibaabin hadeer baa qaadanayna bay ugu yiraahdeen ma garatay marka insha Allah in boor inaga dhici mayso rajadeennuna waa 100% aad baynu wanaagsannahay aad baan idinku mahadnaqayaa isu soo baxdeen maanta oo ay tahay xafladii u horeysay ee xisbiga Ucud waxaanu ka sharaxanahay xisbiga Ucud xisbiga baynu nahay guushayaale waxaan ahay aqal Soomaali baan ahay dhaqankii baan dib ugu noqday Cilifnay weyna waxaan doonayaa inay siday ahaan jirto ku noqoto maanta aad baan ugu faraxsanahay xamaasada ololaha niyad samida kalsoonida isu soo baxa aan ugu mahad celeynaa silaanya ilaahay caafimaad ha siiyo ilaahay cumri dheer ha siiyo waxaan wax loo guda lahayn wadada saacadda aynu soconayno aan meel laga hakanayn ee ay xukuumadii kulmiye iyo silaanyaba sameeyeen dadka wax qabadkooda iyo abaalkooda waa loogu mahad celiyaa u cid baanahay oo xisbi mucaarada macnaheedu maaha mucaarad baanu ka nahay xukuumadda iyo wax qabadkeeda waa soo dhaweynayna waana ku ammaanaynaa gabagabadiina waxa iyaguna halkaasi ka hadlay musharaxiinta golayaasha deegaanka ee degmada Cilifina xisbiga u ciid waxaan hadaladoodii kamid ah idinka codsanaynaa dhammaan reer Cilif Weynow inaad sidaa noogu muujiseen taageerida inaad 31 Mayna aan codkana uga aragno degmada Cilif Weyn sombarka codaynta golaha deegaanka aan ku leeyahay waxa weeye Axmed Cabdulaahi Axmed 107 ama 107 waxa weeyaan waa maalinteennii xisbiga u ciid baale 23 bishii shanaad weeye 2021 waxaynu maanta isu soo baxeen ugu horeeyay weeye xoogaa waxaad moodaa inay xaflado fiican baa dhacay laakiin haddana kulliba waa laynugu soo horeysiyo mucaaradka inta badan shar baa laga tuuraa waxay ahayd xisbiga kulmiye ugu soo horeeyo laakiin inaga laynugu soo horeysiyo inagana waa iska caabinay soo maaha laakiin labada calaamadood ee aad noo xasuusnaanaysaan waxa weeyaan waa aqal Soomaaliga iyo 102 ee uu maanta inagala joogo afayeenka xisbiga Maxamed Cali Bilaal waxaan leenahay waa aragtaan afayeen indhihiina wax ku aragtaan dhammaan shacabweynaha reer Cilif Weyn dhalinyaro waayeel waxgarad haween dhammaantood waa xisbiga u ciid
cumar jaamac faarax oo calaamadiisu tahay kursi waxaanu leenahay xildhibaan waad ku fadhidaa kursiga anigu cabdikariin qaali cabsiye lamarkaygu yahay 103 xildhibaan jaamac alboole wuxuu wataa calaamadda dawacada hayeenkii xisbiga master bilaal baa fadhiya xisbigu waa weel wax lagu shubto weeye waxa aynu ku shubannaa baynu ka soo shubanaynaa master bilaalla waxaannu ka codsanaynaa inaanu biyaha naga qubin xisbigu mashxaradii waxba maaha calanna waxba maaha istiikarra waxba maaha muhiimaddu waa codka war codka soo u codsiin maysaan aniga lambarkaygu waa 104 waa maxamed suuta telefishinka qaranka Soomaaliland Elfwin